بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحوينها قلب هذا إلهي إذا كيسة رجب في عم بعلاقة قوا إن أخدمها الله حلك الله صاري وسوى هي وإلهي إذا كيسة كوجو ليسو ماشي دتكاسي سيدو سوى ما كرو سوى كانوا هذا قلبه dad badan iyo maamulka korona waa ka horeeyay dawladii dhaxana waa arinteedii waagdhow adkii kuwii la galay waa isku keeni waayeen wax hadde madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo walaha wasiirada iyo dadka galmudug oo madaxweynaha doortay isku jira oo asagu madax u yahay waxa la rabaa inay tashi sameeyaan geed gaaman bayna u fuulaan si allaaliyo sida la isku qaato dadkaas walaalaha oo hadda la idankeeda leeyahay gobolka wada degan oo aan dhaliyana isugu dhow dhaqaalana isku meel jooga magac iyo maamuus iyo karaamo iyo dhaliyo iyo helnimo wax walbana ay ka dhaxayaan oo aan dad isku dheer ahayn inay dadaal dheer ku bixiyaan si allaaliyo sidii midnimadooda lagu heli karo intaas ayaan ku tala bixinaynaa anaga iyo dadkii waxgaradka waxda jooga fakirkaas ay qabaan ma garan haye marka wadiiqada hadda la maray aad bay u badnayd oo lagu raadiyay midnimada ahlu sunna wal jamaa iyo galmudug dhowr jeer baa la isku dayo dadaal dheer baa loo galay hadda talaabooyinka uu sheegay inuu qaadayo madaxweynaha cusub ee galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf maxay uga duwan yihiin kuwaas oo isaga hadda u suuro gali kara ما يعذروا أمورته مركي إذا كإلهي بأمورته وصعتها مدحوينه نصيب في سوقها تذكي هوري طوار انتا تلالا كتير نصيب كوري أيضا أي لقل من وحا ماشي لغا ربا إنا لقوصا ومدح دولة ديبا مقالنيسا أرنتاس ميل مسيوي دا عن الأوران ما ملكي هورا ميل مسيوي عن الأوران madaxweynuhu nasiibkiisu qabaa nin odayaho haddii alla kuu roon yahay magac weyn lahoo la yaqaan oo labada meeloodba xiriir iyo wanaag iyo talo iyo dhaliyo iyo dhaqaale ku leh Soomaalidu way istaqaano labada waa yahay hadda wuxuu yiri caruur niman dhalin kala dheerayn ayaa raadiye ilma hadday dhalaan caruur luuso waxaa kamid ah oo saas dawladda loogu maamahaya nina dhalin kala dheerayn ayaa raadkooda qaaday waxaa loo leeyahay kan dhalayna waa dheeraynahaya in raadka booda dhacda midkii ka dheerina inuu yiraahdo waxaan uga jeeday raadkooda iyo jinniqada ku dhibtoon maayo waa iska daayay ayaa u dhow laakiin ninkii aan dhalin oo deganaa wuxuu fiiri kara aanan ka dheerayn ee la jecel hayso waxay u badan tahay waaba laga mahmaahayo waxa la niman dhalin kala dheerayn baa raadiya asaguna madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle wuxuu ku nisbaysan yahay niman dhalin kala dheerayn sidii looga mahmaahay aniga waxaan qabaa sunna wal jamaacana ninkaas odaga inay xiriirka ay leeyihiin iyo caqliga uu haddii alla idankeeda leeyahay ku socdo inayan ka malaysan nin ilaahayba haddaan laga waayin ayaga riixaya oo waxay yeelan karaan oo waxay u yeelan karaan cid kale la jecel oo wuxuu diidahaya inaan loo qaadan qolada haddii alla ku galmudug oo isaga dooratay leeyahay meel kale inuu wax geynayo u jiidahaya ayan u qaadan labada dhinacba inay warkiisa aaminaan waxay isugu yimaadaanna ay tahay muwaafaqo ay wax isugu darsadaan oo marxuu waa yiraahdaan dalkaani waa deeqaa ummadda ku nool waana ka soo haraa iyadoo ilaahayba haddaan laga waayin aan dalkan dadka waa ka badan yahay hadda la iska wada dhimanayaa ama dhibaato imaanaysa ama dhimashaaba imaanaysa laakiin inta maanta joogtaa waxaan ku talinayaa dadka inay kala fogeyn madaxweynaha lagu ixtiraamo
dhinaca uu nimankii doortana wuxuu ku taliyay inay aqbalaan nimankaa kaleeto ayagu haddii alla kuu roon yahay dadoo dhan ka tala diidana isaga taladiisa inay qaataan nimankaasna la wanaajiyo oo loo roonaado oo cudurka laga bixiyo oo wax allaale iyo wixii haddii alla idankeeda leeyahay tala iyo tigaad in la tixgeliyo aada loo tixgeliyo si midnimo loo helo aan ilaahayba haddaan laga waayin aan rajo ka qabaa wax badan baa isbedeli doona nin raga oo raganimada hadda aan ka malaynayo madaxweynaha galmudug haddii uu ku shaqeeyo ilaahay haatan inaan nasiibkiisa xumayn baan u malaynahayaa haddii adduunyada saboolnimo kuma joogin nin iska hodalow oo ilaahay wax siiyey oo xoola haysto oo ladan buu ahaa ladnaantaasina waxaa laga yaabaa nasiib iyo tag ilaahay siiye inay tahay wixii uu ku dhaqaaqaba inay u fududaadaan haddii maanta inuu yidhaahdo shaqadaysa habeen dhaweydna waa ka idhi idaacada ha ku dhaqaaqo Axmed Ducaale isagoon war feer dhigin kale oon waxba ka hormarin sidii dekeda hobyood ay u meel qaban lahayd oo loo dhisi lahayd shirkada waxa dirsada waaye yaa meel walba jooga hadda iimaanaadku waa kii lalahaa waxay dekedihii shaqayn jiray oo kan boosaaso iyo mid bay haddii aan la ku leeyahay bahalka la yidhaahdo berbera iyo kuwa shaqayn jiray ay ballaarinahayaan oo hawl ka dhiganahayaan oo ka shaqaynaya waa tii lalahaa midaasna hadda deked shaqo rabta weeye inkastoo ay dabeeci tahay oo haddaba badeeca ka degto oo weligay arki jira iyadoo badeeca ka degto oo haddii ka degto misna waa deked wax ka qabasho u baahan sanacada ummadaha ilaahay baray aqoonta u leh ayaana si fudud wax uga qaban kara marka hadduu horta awoodda saaro oo halkaa dekedaasi ay ka meel qabato hadda dadkoo dhan ama sunnaga jamaaca ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama kuwa kaloo haddii alla ku reeyay hirshabeelle iyo wixii lamid ha noqoto dadku asagaaba wada wada marahaya asagaa wada marahaya madaxweynuhuna wuxuu helayaa wuxuu wax ku furdaamiyo helayaa magac iyo karaamo haddii alla ku reeyay uu dalka iyo dadkaba ku dhex yeelanaya wax walbana waa u fududaanaya waxaan leeyahay ninkaas odaga ah hala garab galo Soomaaliya waxay baratay farakutaag iyo lagidin iyo haddii alla idankeeda leeyahay nin horaba iga waayo ka diiday manima wax ka yeelaya hadda cusub meedin waxaas Soomaaliya lagu gooyay oo dhibaatadan laga bixi waayay waxaas ma garanaysaa dadka dhaqankiisu noqdo waxaan ka codsanayaa ninka odaga ah sunna wal jamaaco oo samareeb iyo cadaado 8 kiiloomitir bay isku jiraan dad wada shay baa jooga sabab ay ku kala xirmaan oo ku kala maqnaadaan waa doqonnimo ilaa walka ay naga reeyay doqonnimo weyn talooyinka wajiga cusub hal laga faa'iideysto kaalinta odayaal dhaqameedka ay arrintan ay ku leeyihiin ma laga maarmi karaa bay kula tahay hadda adeerow odayaal dhaqameedku waxaan fayoobay inuu habaar ku dhacay mooye wixii fayoobay midda anigu waxaan sheegayay ila qabaan hadda maxaa ku baaqday hadda hadalkaygaas meel badan baa laga maqlahayaa odayaasha Soomaaliyeed goboladaas jooga mudug iyo galguduudna fakarkaygaas oo kale qabaan waxay ka yihiin waxaan la kala jiidanahay oo aan isku raacayn oo aad haddii alla ku roon yahay khilaafka nin wax garta dhalinyaro iyo waayeel nin wax garta oo ilaahay garasho u yeelay waa ka xun yahay hadda wuxuu yahay maxaa lagu gaarayaa kala maqnaanta maxaa lagu gaarayaa isdiidka maxaa lagu gaarayaa waxa lagu gaarayaa midnimada iyo muwaafaqada lagu gaarayaa aakhira waa nin iyo camalkii adduunyada maanta aan joognana waxa wax u tarahaya tawfiiqda israaca oo u tarahaya inta lagu daayo laga faa'iideysto sidaas soo jeedinayna nin walba oo wax gartaana ila qabaan